Videogan waa videogii cashirkii labaad oon ka bixinayno example ku saabsan linear equalities. Example-kan nala dhahay ka shaqeey solve for q aa lagu dhahay marka waxaad haysataa 4q plus 3 in ay ka yar tahay 2q plus 3 marka inequality-ga kana la dhahay ka shaqeeya solve for q aa la rabaa inaad raadisid intervalki ama rangegeeda solve for q raadi marka waxay noqonaysaa sida tan wixii isku nooc ayaan isku dhinac geynaynaa laakiin marka hore inaan bracketkan jabino weeyaan marka 4q plus 3 waxay ka yar tahay 2da ku dhufo q 2q plus 6 soma 2 times 3 waa 6 marka wixii q aan isku dhinac geynaynaa 4q waxay ka yar tahay waxaan ka wadaa 4q minus 2q 2da tanaan xagga geynay dhankan kalena 3da ayaan xaggan keenayna marka waxay noqonaysaa 6 minus 3 marka inta haddaan kala jarno 4q iyo minus 2q waxaa noo soo baxayaa waxaa noo soo baxaya 2q 2q marka 2q 2q waxay ka yar tahay 6 minus 3 waa iska 3 soo ma marka q waxay ka yar tahay haddaan labada dhinac u qaybin divide by 2 waxaa kusoo baxaya q in ay ka yar tahay 3 all over 2 q inay ka yar tahay 3 all over 2 marka hadda waxaan sameynaynaa number line ayaan ku sawiraynaa midda tan marka hadda q waxaa lagu dhaha way ka yar tahay marka mar hadday ka yar tahay waxaan isticmaalaynaa open dot 3 over 2 waa iska 1.5 sameydan garan 3 over 2 waxay la mid tahay waa 1.5 marka intay ku taallaa open dotkaas ayaan isticmaalaynaa way ka yar tahay lagu dhahay marka dhankan kale ayaan u jiidaynaa linkaas arrowga waayo q way ka yar tahay 3 over 2 marka bracket ahaan haddaan isticmaalno waxaa kusoo baxay inay tahay ii sheegtid waxaan isticmaalaynaa parenthesis marka waxaa kusoo baxaya laga bilaaba negative infinity ilaa iyo 3 over 2 laakiin 3 over 2 ka mid maaha marka sababtaasaan u isticmaalaynaa parenthesis marka macnaheedu waxaa weeyaan negative infinity tan waxaa weeyaan waa wax kastoo u jeeda hoos ilaa iyo nambarada negative-ka wax kastoo kor u jeeda ilaa iyo nambarada positive-ka waxaa la dhahaa aan dhammaadka lahayn waa infinity positive infinity wax kastoo hoos u jeeda oo ilaa iyo nambarada negative infinity-gana waxa weeyaan waa negative infinity marka sidaas ayaan kaga shaqeynay hadda ansada waxa weeyaan q solve for q marka waxa weeyaan less than 3 over 2 weeyaan waa sida hadda saan ayuu noqonayaa solutionka number line haddii la rabo inaad isku sawirtin sidaas ay noqonaysaa number line example kale ayaan qaadanaynaa oo ayadana saas oo kale ah example-kan kale saan u oolayaa kasoo qaad inaan haysano midkan solve for x way markan 5 aan haysanaa 5 inta noogu qor is less than or equal to x plus 3 intana ay ka yartahay 8 marka inequality-da tan aan rabo in laga shaqeeyo marka laba sign aan haysanaa waxaan haysanaa simple-kan oo ah ii sheegtid less than or equal to iyo midkan kale oo ah ay sheegtid less than keliya marka sidaasaan uga shaqeynayna noo soo qor horta su-aashii mar labaad 5 inay ka yar tahay ama ay la mid tahay x plus 3 iyadana ay ka yar tahay 8 marka x tan bisaan rabnaa in meesha ku reebno x tan soo ma aragtiin x tan keliya ayaan rabnaa inaan meeshan ku reebno marka 3da waa inaan meesha ka saarnaa marka si aan meesha uga saarno waxay noqonaysaa 5 dhankan kala geey waa minus 3 is less than or equal to x طبعا haddaan sameyno x plus 3 aan dhihi karnaa minus 3 si aan meesha uga saarno 3da haddii dhanka kale la geeyana waxay noqonaysaa 8 minus 3
marka inta waxaa kugu soo horaya 5 minus 3 waa iska 2 soo maaha waa 2 2 waxay ka yartaa ma ay la mid tahay inta bis waxaa noogu soo horaya x labadan way isjarayaan x na waxay ka yartahay 8 minus 3 oo 5 ah marka meeshan laba sign waxaan haysanaa laba sign less than or equal to iyo less than keliyata marka hadda hadday noqoto inaan number line isticmaalno number line-keena aan sawiranaynaa marka x waxay ka weyn tahay inta horta aan ku bilowno kasoo qaad waxaan ku bilownay 1 marka hadda u fiirso x waxaa lagu leeyahay way ka weyn tahay ama way la mid tahay marka inta waxaa weeyaan waxaan ku qoraynaa close dot ayaan isticmaalaynaa meeshaas ay 2 saaran tahay waayo x way ka weyn tahay ilaa wayna ka yartahay lagu dhahay 5 way ka yartahay 5 marka booska 5 na waxaan qoraynaa open dot سمعتان garan marka leenku hadda dabcan x way ka weyn tahay ama way la mid tahay 2 marka xariiqintanu dhankan ay u soconaysaa سمعتان garan marka sidaas waxay noqonaysaa x inay ka weyn tahay ama ay la mid tahay 2 wayna ka yar tahay 5 marka haddaan isticmaalno bracketkii waxay noqonaysaa dhankan inay noqoto square bracket 2da inta ku qor ilaa laga gaarayo 5 laakiin 5 ka mid ma aha sidaa awgeed waxaan isticmaalaynaa parenthesis sameyn arki marka sidaas ayaan ku keenay ansada x waxay intervalka x macnaha ay noqon karto marka anything oo laga bilaaba 2 iyo 3 iyo 4 haddaad gelisid meeshan haddaad gelisid waxay ku siinaysaa tiro ka weyn ama la mid ah 5 laakiinse tiro ka yar 8 saas weyn macnaheedu haddaan ku tijaabino 3 oo kale hadda 3 haddaan inta gelino oo x len 3 way qaadan kartaa maadaama 3 intervalkan ay ka mid tahay waxay noqonaysaa hadda booskii x haddaan 3 gelino 3 plus 3 inta waxaan ku haysanaa 6 soo maaha meesha 6 aan ku haysanaa 6 way ka weyn tahay 5 way ka weyn tahay ama way la mid noqon kartaa 5 laakiinse way ka yar tahay 8 saas weeyaan macnaheedu example kale ugu dambeeya haddaan ku daro example-kan waxaan ka rabaa inaan solve garayno for x asagana x raadiya lagu dhahay marka waxaana lasii midkan negative 2 ayaa lagu dhahay in bracket x plus 3 waxay ka yar tahay 10 marka solve for x raadi marka negative 2 in bracket x plus 3 waxay ka yar tahay 10 markan waxaan gelinaynaa bracketkan aan jebinaynaa marka koobaad oo waxay noqonaysaa negative 2x minus 6 in ay ka yar tahay 10 marka inta x baa bisaan rabnaa inaan ku reebno marka waxaan samaynaynaa negative 2x 6ka ayaan dhankan kala geynaynaa hadda dhankan kala geyso waxay noqonaysaa plus soo maaha marka waxaa weeyaan negative 2 x inay ka yar tahay 10 plus 6 dhanka kale markaad geysid signku isbedelaya of course marka inta waxaa kusoo baxaya negative 2x in ay ka yar tahay 16 soo maaha marka waxaan rabnaa x bis aan rabnaa in meesha ku reebno marka divide by negative 2 dheh labada dhinac divide by negative 2 divide by negative 2 marka u fiirso dhankan hadda signku wuu isbedelayaa dhankan ay x jirto way isbedelaysaa signku oo waxay noqonaysaa hadda positive aan helina x oo positive dhankan hadda negative baa la socday soo ma aragtiin laakiin marka negative 2 u qaybsad signku wuu isbedelayaa markaas midkanna wuu isbedelayaa signka inequality-ga xataa way isbedelaysaa waxay noqonaysaa x inay ka weyn tahay negative 8 16 divide by negative 2 waa iska negative 8 marka signka dhankan wuu isbedelay signka dhankan wuu isbedelay sababtan uu isbedelayna waxaa weeyaan negative-ki inta ku yaalay ayaa isbedeshay oo positive ay noqotay marka hadda x waxay ka weyn tahay negative 8 haddaan number line ku sawirno number line
marka aan ka bilowno negative 10 oo kale negative 10 negative 9 negative 8 negative 7 saasoo ku socota negative 6 marka x way ka weyn tahay lagu dhahay marka waxaad isticmaalaysaa open dot ayaa isticmaalaysaa meeshan hadda open dot way ka weyn tahay lagu dhahay marka dhankaasaad ujeedaysaa xariiqinta dhankaasaad ujeedaysaa marka haddaad isticmaali rabtid bracketkii waxay noqonaysaa intervalku sida tan negative 8 waa open marka waxaan isticmaalaynaa parenthesis intan ugu qor negative 8 ilaa laga gaarayo hor oo iska positive infinity marka sidaas ay noqonaysaa ansadii waxa weeyaan waxaan dhan waa isla ansadii tan hadda waa ansadii laakiin tan waa iyadoo caadi calculation caadi ah aljibra ahaan mida tanna waxa weeyaan number line anagoo isticmaalayna number line oo haddii lagu dhaho graph garay number line mida tanna waxa weeyaan intervalka caadi anagoo isticmaalayna brackets intervalka u dhaxayn karo ansada marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontiin videoyaashan la share gareeya ardayda u baahnaan karta casharada tan channelkana kusoo biira subscribe gareeya share gareeya waa ilaa iyo insha allahu iyo video kale insha allah